horeysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda haddaan geerida tarita haddaan ubadka uga hesho haddaan ultiya tacluusta haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horeysa lahabto horumarkeeda lahabto horumarkeeda hankii qaranka waxaan soo dhaweynayaa waftiga uu hogaaminayo maariya ku-xigeenka DB World Mr. Suhail oo aad iyo aad ugu mahadnaqayno DB World iyo dawladda Imaaraadka Carabtaba maalgelinta xoogga leh iyo ku dhiirashada inay maalgeliyaan Somaliland waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa iyaga iyo dawladooda iyo shacbigoodaba taageerada dhaqaale iyo walaaltinimo ee isla kaga garab taageen Somaliland waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso oo horumariso mashaariicda waxtarka ah ee in khayraadka Somaliland iyo juqraafiyaadka ku taalaba laga wada faa'iideysto aad iyo aad waan waftiga u soo dhaweynay haddaan ka gudbo soo dhawaanta waftiga mashruucan Berbera Port iyo hawshiisa aragtida guud ee kale aan qaran ahaan waxa weeye inaynu ka helo koboc dhaqaale oo dalkeena Somaliland iyo gobolka aynu ku nool geeska Afrika caalamkana aynu la wadaagno ayaynu aragtida guud ka leeyahay himladeenu waxa weeye aan mashruucan kale dekedan in ay barwaaqowdo Somaliland oo horseed u noqoto bilowga dhismaha dekeda iyo wadada Berbera iyo airportka Berbera oo isaguna noqon doona mid baayac mushtari oo ganacsi oo international ah oo hub weyn inta markaynu isla helo oo aragtida guuda sidee baynu hirgelinaa baa taala daynu Somaliland si aynu hirgelino waxaynu u baahnahay dhowr qodob ka koobaad waxa weeye inaan helo kaabayaal dhaqaale oo raandhiis leh wadooyin deked isgaarsiin energy ama dab electric oo dadka iyo ummadaha imanaya caalamiga ah maal gashanaya ay isku haleyn karaan oo joogta waxaanu u baahanahay inaan helo dad aqoon u leh maamulka ganacsiga inta leega caalamiga ah oo xirfadlayaal iyo aqoonyahan sarabo leh oo Somaliland darisa oo waxna ku tababarta hawsha imika socota iyo qolada noobanaysa qaarna dhalinyaradeen iyo dadkeena aan u tacliimino iyo dadkeena hore gabowga wixii shaqayn kale hawsha yaqaanaba inuu isku tagno si aynu isaga dheelitiro dadka ajaanibka ee aqoonta leh ee inala shaqeynay oo ay la noqonin meel maran oo aan garanayn wax laga shaqeynayo ee loo yeeriyo ayaan u baahanayn isku tagno laha waxa ilaahay mahadiya in xagga dabka dawladda Imaaraadka Carabta inaga caawisay oo inoogu deeqday solar system 7 megawatt oo Berbera iyo dekada iyo hawsheeda ku filan oo dhawaan soo degi doona oo la dhigi doono dekada Berbera waxa kale oo baahanahay inaan soo jiidano maalgashiyaal xoog leh ka bilaabno kuweena lacagta haya ee Somaliland inay ku dhiiradaan inay dalka maalgeliyaan kuwa caalamiga ah ee adduunka daafihiisa oo dhan gaar ahaan kuwa aynu jaarka nahay dawladaha jaarka nahay inaynu soo jiidano inay dalka maalgashadaan sidee baynu taa ku helaynaa marka hore waxaynu ku helaynaa Somaliland oo midaysan dhammaanteed oo qof waliba iska xil saaro inuu yahay mas'uul arrinta fulinaya hadday aqoon tahay hadday dabeecad tahay hadday nabadgelyo tahay hadday la xiriirka dadka tahay inaynu noqono dad u diyaarsan u bisil u soo diyaar garoobay inay caalamka la shaqeeyaan
saddex wuxuu dalkeenu leeyahay oon ku kaabi karnaa kobaca dhaqaale dalxiiska dad badan oo inaga mid ah waxay dareen taban ka muujiyaan markay maqlaan ereyga dalxiiska dalxiisku waa dhaqaale xoog leh oo maanta adduunka ka jira waxaana lagu helaa waxyaalo badan dad waxay ku helaan taariikhda awliyaashood kaga taga dhulka sida masar oo kale faraacinada loo daawado sida turkiga oo kale malaayiin iyo malaayiin doolar bay ka helaan dhaxalka awliyaashood waxay dhiseen taa qayb baynu ka leenahay waxaan leenahay goobo taariikh oo cajiiba oo qaarkood loo tiriyo ilaa 7,000 oo sannadood ka hortood inay dadkii awliyaasha dhulka deganaa sameeyeen oo aynu in yar ka aragnay in badanna aynaan gaadhin waxaanu leenahay dhul juqraafi ahaan soo jiita dadka dalxiiska ah ay u tamashla yimaadaan waxaanu leenahay xeebo dhaadheer oo fara badan oo kala nooc ah oo soo jiidan kara dalxiisayaasha dalxiisku waa khayraadku ka mid yahay adduunku ku dhaqmo ee uu lacag ka sameeyo waxaanay ku xidhan tahay hadba saad adigu u maamusho dalxiiskeena waxaanu ku dhaysanaa sharcigeena dhaqankeena iyo diinteena ma aha sida dadka arrinta taban ee laga haysto inay meel qaawan iyo fawdo tahay turkiga oo islaama waa aragtay dalxiiskiisa sacuudiga imika furaya dalxiis marka waxaynu u baahannahay inaynu u tababarno maskaxdeena u furno dalxiis dhaqan soomaaliyeed islaama leh inaynu ka samayno dhaqaalo fara badan oo aynu maanta u baahannahay oonu ka howlgalno waxaynu xoogga saaraynaa haddaynu saasoo dhan u helno intaasoo dhan markaynu helno dhallinyaradeena iyo aqoonteeda inaynu samayno iskuulo degdega oo xirfadayaal ah oo arrimaha aynu soo sheegno fara badan oo shaqooyin kala nooc ah oo iminka aynaan aqoon qaarna aanaynan u carbisnayn oo dhaqan ahaan aynu necabnahay inaan u tababarano waxaa ka mid ah waxaan la yidhaahdo hospitality ama martigelinta soo dhoweynta la yidhaahdo haddaynu nahay soomaalida badankeeda uma tababarin maskixiya waxaa ka mid ah hodheelada laga shaqeeyo hadday gogol tahay hadday cunto tahay hadday nadaafad tahay hadday adeega tahay soomaalidu taa uma carbisna waayo dhaqankeena ka soo jeeda weliba wixii rag ahaa ilahay taa waa ku sameey kama shaqayn karaa waxay u haystaan xaqiraad waayo xitaa ninku hadday gabadhiisu bugto oo ay xanuunsanayso oo ciyaalka qaar haysa qaadada shaaha ma karsan karo marka inuu ka shaqeeyo hodheel uu hore u wada soomaalida way ku adag tahay u fiirsada hodheeladeena iyo caalamka kuwa kale markaad tagtaan waa maskaxiya dalxiiska lamida waxaan u baahannahay in dhallinyaradeena aanu barra inay buuraha qodaan oo ay eegaan maaragtay meelaha hore qadiimka oo dhulan adag ay furaan oo jiro tagaan waxaan ku faraxsanahay hal gabadh baa jirta oo magaceeda aad u aqoon oo ka hadasha TV-yada iyo raadiyaasha oo soo baadhay marka laga bilaabo ugu yaraan malaha ilaa iyo boorame ilaa iyo waxaan manayaa inay gaadhay ceerga markii dib waxay maraysay xeebta bari ee buuraha bari ee berbera ayay maraysay oo god walba calaamadiisa halkaa waxaa jira kaasaa waxaa jira oo kaba qara u xidhatay dhalinyaro ragga badan jirtaa ma karo intaa markaynu isla qaadano shanta dhowrkaa qodob aan soo taagay oo taabasho guuda waxaynu u baahanaynaa oo laga maarmaana in la hubiyo inagiyo DB Well iyo cid kasta oo samaynaysa kobac dhaqaale inaynu daryeelno deegaanka dhawr kobac dhaqaale koraya iyo deegaanka oo la ilaaliyo haddii ay socon waayaan ay israaci waayaan oo nu deegaanka dayacno waxaynu amaahanaynaa dhibaato kale horumar weyn soo laakiin dhan kale dhibaato ka abuurayna marka kobac kasta oo dhaqaale samaynayna waa inuu koriya oo u ilaaliyo deegaanka si mustaqbalka da'da dambe deegaanka loogu ilaaliyo qayb ka mid ah